hadda aan fadhino waa kuraastii Ashley kuraasta Ashley iyagoo noocyo badan u kala baxa kuwan ayaa ka mid ah sariirihii waad soo aragteen marka waxa waaye store-kan waxaan laga helin ma lahan waa dukaanka ugu horeeyay oo furniture oo laga furay magaalada Minneapolis oo Soomaali raangareyso brand name ayaan gadnaa Ashley home furniture you name it wax kasta aad u baahan tahay dukaankan ka helaysaa dadka dhalinyarada iskursada oo yar yar kaan waxaan u sameeynaa waana caawintimada waxa ka mid ah wax kasta ay gataan ba sariirtii iyo qadadii iyo chiefkii iyo decorationkii iyo nalalkii wax kasta ay gataan bareysir oo qanciya ay waligood arkin bay dukaankan ugu imaadaan walaalayaal waan ugu soo dhaweynaynaa waa mahad inoo dhalatay ku soo dhawaada dukaankan home of comfort ku soo dhawaada hadii ilaahay yiraahdo wax allaale waxaad uga baahtana waad ka helaysaan dhalinyaro yar oo waxa ka shaqeeya decorationkii lagu sameeyaa delivery-ga baa lagu sameeyaa wax kasta adigu aad rabtaa lagu guriga xataa inta lagu tagaa lagu design gareynaya daahiyada wax kasta aad u baahan tahay sida ay u tahay baa lagu sameeyaa ku soo dhawaada dukaankan home of comfort baa la yiraahdaa Nicolette iyo wuxuu ku yaalaa Franklin meesha iska gooyaan waa inagu soo dhaweynaa gacmo furan ku soo dhawaada home of comfort ayaa in leenahay bismillah khiyarta ku nool magaalada Mataanaha ku soo dhaweynaynaa home of comfort oo ku yaala 2109 Nicolette a block away across the street from Starbucks Nicolette iyo Franklin وجدان وان سفرada gudaha ku jira wareysigii dhamaa hadal nagu daalinayo Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waxa la yiraahdaa Yasmin waxaan ugu soo dhaweynayaa dukaankan cusub oo laga furay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis gaar ahaan South Minneapolis meesha iska jiraan Franklin iyo Nicolette dukaanka laga furay ayaan ugu soo dhaweynaynaa dhalinyarada aroosaysa hooyooyinka guryaha iska bedelaya kuwa caruurta badan leh kulligood waxaan ugu bishaareynaa dukaan cusub in halka looga furay dukaankaas oo la shaqeynaya wax kasta ayagu ay u baahan yihiin in loo keeno delivery-ga loo sameeyo decoration-kii loo sameeyo nalalkii wax allaale waxay u baahnayeen sariirihii ayay ka helayaan dukaankan qiimo fiican oo in farxad galiyana aad ka helaysaan dhalinyarada aroosaysa sidoo kaleeto hooyooyinka ayooyinka wax kasta aad u baahan tihiin dukaankan ayaad ka helaysaan kusoo dhawaada farxad weeyaan waa dukaan cusub oo Soomaali leedahay waan ugu soo dhaweynaa dhalinyaro waxa ka shaqeysa maskaxdooda aad u fiican tahay guriga inay sharaxaysa decoration-ka inay sameynaysa maaragtay in qiiro gelinaysa in la shaqeynaa markaad aragtaan oo waxa kan yiraahdo American service-ka waxa customer service-ka wax badan ka yaqaana Soomaalidana waxaan jecelnahay inaan ku soo dhaweyno waxyaalaha cusub oo imaada ku soo dhawaada home and comfort walaalayaal ku soo dhawaada saas ay leenahay rasho wanaagsan haddana waxaa in la jooga dhinacyadeyda fadhiya dadkii ka gatay oo ku barwaaqoobay oo caruuraha ku dhalay home and comfort ayaan wareysanaynaa su'aalo weydiinaynaa halka dhinacayga bidixda waxaa fadhida Falastiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal nooga waran dukaankan maanta imaatay sidee lagu qanciyay sidee lagu soo dhaweeyay maxaa laga gaday bal nooga sheekay si fiican la ii qanciyay maxaa laga gaday fadhi hurdo qado customer waxaan ka bag of 2008 ilaa hadda waana jeclay dukaankan dhalinyarada aad u imaatay ma ku qanciyay aad ii qanciyay customer fiican waxa jooga dad fiican si fiican la ii soo dhaweeyay si fiican baa la ii qanciyay customer service-kooda markii 1 to 10 maxad ku reed gareyn lahayd dadka shaqadooda dadka soo baxay oo yaqaan 10 ma ku reeyana ma sha Allah halkaana waxaa fadhida habaryar kale oo iyadana oo dadka kamid ah كمان فرصة جسد
oo ka mid ah dadka oo waxa kan yiraahdo home on comfort ka adeegta ayadana waxaan rabnaa bal dukaankan say u aragto sidee maaragtay dhalinyarada iyo dadka oo kaleeto aan ka soo qayb galin ay ugu sheegto inay sidee warkeeda noogu soo gudbiso haddii ilaahay yiraahdo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo weli dukaanka kama adeeganin laakiin insha allah hadda ka bacdi baan ka adeegan doonaa dhowr jeerna waan imid waan u bogay hadaaleen baan u soo socdaa warkiisa markaad maqashay oo gabadha marka u tahay oo ku keentay ee warkiisa dukaan ku sheegtay maxay ku soo gudbisay waxa lagu sheegay iyo waxaad ku aragtay sameysleeyihiin kulli way isleeyihiin waxay sheegtay iyo waxay aan ku arkay intaba ma sha Allah dad saas oo kala jira dad badan baa jira halkan waxa iga fadhiday dad xayaat shaqaale geelle ayadana waxa kan ilaa waxay ka mid tahay dadka kasta marka waa dukaanka dad badan u keenay ayadana waxaan rabnaa inaan weydiino dukaankan ee si kula yahay maxaa dadka dhalinyarada ama dadka yeelka ama dadka dhexdhexaadka oo raba inay iska bedelaan guryahooda kula tarin lahayn maxaa ku dhihi lahayd bismillaahi raxmaani raxiim aan sidaad u aragtaan dukaankan Ashley kama dhaco inta badan waxaad moodaa Soomaalida inay Ashley u aad shopping marka waxaan leenahay Soomaaliyeed dukaankiina alaabta aad Ashley ka heli jirteen exactly the same alaabta dukaankan taala dad badan oo Soomaaliya oo iminka aqal galay oo caruur waliba isu dhalay baa alaabta wali ka sii bedeshay oo ka soo bedeshay marka anigu experience aan leeyahay waxa weeyaan in aad ka helisaan alaabta dukaamada gaalada ka helisaan so please help yourself and your family and your people and Somali stories welcome baan idin leeyahay anything aad u baahan tihiin waad helisaan lay away baad helisaan xitaa aydan ka helin dukaamada kale marka welcome baan idin leeyahay finance ma sameeyay because muslim baan but we are trying to find that too marka waxaan idin ka rajaynaynaa idinka naftirkiina nidaam islaami oo aan wax ku qaadan karno haddaan customer ka nahay inaad raadisaan iyo liilan badan oo aan soo dhawaan karno marka anything aad u baahan tihiin Ashley iyo dukaamada kale oo dhan it's the same alaabta ka helisaan oo waliba af Soomaali lagu la hadlayo gaalo badan oo xitaa af garanayn baa alaabta ka gadata oo taxi iyo hidden iyo waxyaabo isugu ka qabanayo aad ka qaadataan marka halkan adigiyo og waxaad qaadanayso iyo price-ki iyo wax walba diyaar baa leedin yahay welcome aniguna customer-kan ka mid ahay malihi laakiin I like the way ay u soo gareeyaan so welcome baan idin leeyahay waa mahadsantahay eedaxayaad adiguna aad ayaad u mahadsantahay waxyaalahaas ay sheegtayna waan improvement waana sameynaa hadii ilaa haddana waan sameynaa ku soo dhawaada home on comfort siday u sheegtay Ashley intay yaalaan waxa la waxaad kala number ka soo qoro dheera ka soo qoro waxa laga yaabaa intaas oo $100 in lagu yiraahdo halkan marka noo imaatina price aad ku qiimo geliyo ku qanciyo aad ka heshin marka walaalayaal ku soo dhawaada home furniture sidoo kale waxaa jira xataa store kale ku oolin meelahan oo California iyo Seattle Washington ku yaalo oo dadka aad u aqoonin alaabtooda xataa waa haynaa furashada waxaan haynaa dadka xanuunsan oo loogu talagalay in ay maaragtay dhabarka iyo meelaha laga hayo oo kale oo dhaqtariintu soo qora xataa waa haynaa marka dhamaantiin waxaan leenahay walaalayaal ku soo dhawaada dukaankan waa dukaan cusub aad ayuu inii qancinayaa waxaad ka gadataan waxa kan yiraahdo waa sida ay sheegtay eede community-geena inay kala adeegato isu imaato inta meel kala aadi lahayn aad ayay u fiican tahay ku soo dhawaada home on comfort again waxaan leenahay ku soo dhawaada waan inaan qancinaynaa waan inaan soo dhaweynaynaa aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkaan aan suuqa imaateen idinkuna aad ayaad u mahadsantihiin home on comfort wuxuu ku yaalaa meel aad ka lumi karinin hadda waxaan taaganahay jidka Nicholas Franklin waa jirtaa Starbucks halkaas ku yaalaa dhinacayga wuxuu ka qabanayaa midigta dahabshiilna wuxuu ku yaalaa gadaasheeda mobilka lagu dhigo bilahan noogu dhiga dukaankayga halkaas ku yaalaa marka waxaan leenahay ku soo dhawaada meel aad ka lumi kartaan ma ahan dukaankana waxaa la yiraahdaa home on comfort waa dukaan cusub American nice
dadka iskuursanaya dhalinyarada dhammaantiinba wuxuu inahay waxayna qancinaya baraysna qancinaya marka walaalayaal ku soo dhawaada haddii ilaahay dhinaca kaleeto hadda waxaan iga sii tilmaamay dhinaca daabshin laga xigto waxaad dhinacan laga xiga 22ga iyo Nicolad meesha iska jiraan waaye halkan Soomaali community baa ku yaala dugsi baa ku yaala jidkan waa aan taaganahay haddeertan waxa weeye Nicolad dukaankuna wuxuu ka qabanayaa dhinaca midigta haddaad ka imaatay xaggaas iyo 26ka haddaad ka imaatay xagga kaleetana wuxuu ka qabanayaa bidixda marka home and comfort ku soo dhawaada magacayga waa Yasmin soo qayb galaan dukaankan green openingkiisa waxyaalaha aan hayno kuraastii qadada kuraastii fadhiga wixii oo loo baahnaa arooska u baahnaayo dhan dabiici tacal waan haynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada iskuursanaysa hooyooyinka iyo aabayaasha guryaha iska bedelahayo arooska labaad sameysanaya waxaan leenahay ku soo dhawaada home and comfort waan qabnaa mararka qaarkood walaalayaal waxaan leenahay ku soo dhawaada home and comfort noo imaada wax fiican oo inay farax galiya oo reerkiina aad dhisanaysaan oo cusub discount fiican ayaan idin siinaynaa dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha wiilasha wax kasta dhammaantii waan ugu soo dhaweynaynaa soo dhawaada home and comfort ku soo dhawaada noo imaada waan dhaqaaleynaa haddii ilaahay yiraahdo marka walaalayaal haddaad wax su'aal qabtaan nala soo xiriira telefoonka hoos ku yaala ayaa nagala soo xiriiraysaan su'aal haddaad qabtaan haddii dadka shaqaalaha meesha ka shaqeeya aysan qancinina waa ii soo sheegaysaan iyadana wixii kaaman ah haddii ilaahay yiraahdo marka walaalayaal ku soo dhawaada home and comfort sidaas iyo nabadgelyo khayr baa idinka tegi